dadka madaxweyne caay ma leh dadkana difaac buu u baahan yahay doorasho uma baahna dalku dagaal buu ku jiraa ninkii aan dalka difaacayna guriga hooyadaa qabo annagu haddaanu reer bari nahay difaac baanu ku jiraa maanta burco way tashatay waxay dooranaysaa cid wax u qabanaysa waa laga baxay wixii kale cid wax qabanaysa la dooranaya cid wax qabanaysana waanu dooranayna farteedaan ku keenay taayadana waanu ku ridaynaa nin gayan gafka aqoona dalkiisa wanaag u soo galay nin guusha anto mujaahida gugay handaraab yiraahdeen adeer guulnageeyo weeyaan madaxweynuhu annagu haddaanu nahay gobolka togdheer wax allaala waxaanu dawladda kulmiye ka hayno oo wax qabada ma hayno si aan la arag oo la maqal baan ku soo dhaweynaynaa madaxweyne mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraadna waan ku dooranaa haddii ilaahay ka dhigo madaxweynuhu waa madaxweyne horta marka hore adkaysi badan marka uu madaxweyne adkaysi badan yahay nin kaleba kama bixin mar malay inta haddii aanu ninkaas joogin marka madaxweynaha waan soo dhaweynayaa wixii qabyaa u taallana waa inuu dhammaystiraa waa inuu tagaa farantana waa inuu tagaa waa inuu faranta tagaa waa inuu soo arkaa dalka waxa ka jira waa inuu soo ogaado magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer ayaa si weyn looga dareemaya qabanqaabada soo dhaweynta madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi farshaqo ugu soo baxay gobolada bari ee dalka Soomaaliland jidadka waaweyn ee halbowlaha magaalada burco ayaa lagu xidhay warar kala duwan ku xadhay halkudhiyo kala duwan oo lagu soo dhaweynayo madaxweynaha bulsha TV ayaa wax ka weydiiyay dadweynaha kala duwan ee magaalada burco siday u arkaan safarka madaxweynaha Soomaaliland ku imanayo magaalada burco ee xarunta gobolka togdheer waxaana kamid ah hadaladoodii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi Xildiid mudane madaxweyne waxaanu kugu soo dhaweynaynaa gobolkii togdheer oo diyaar ku ah waayeel iyo waxgaradba mudane madaxweyne waxaanu intaa ku raacinaynaa weliba inaanu fartayada aanu kugu darro maadaama aad tahay madaxweynihii qaranka burco waxay ku leedahay fariin bay diri doontaa fariintaa waxay u diri doontaa cid kasta fariintay diraysaa waa taageero sidaasaanu kugu soo dhaweynaynaa waxaana laga yaabaa berito in gobolka togdheer aad isbeddelkiia ku aragto waxaa kale aanu kaa sugaynaa waxa weeyaan mashaariic badan baa gobolka togdheer naga baaqsatay maanta dhinacna waanu kaala xisaabtanaynaa dhinacna taageeraanu ku muujinaynaa waan soo dhaweynaynaa madaxweynaha iyo wafdigiisa iyo cidda la socotaba waxaan u soo dhaweynayaa si qeylal caadiya waa madaxweynihii waddanka isagu imaka xusbi oo kale ma matelayo de waa madaxweynaha waxaanu soo dhawow bulcadaadii iyo dalkaagii iyo haddii la ka dhigo iyo waddanka aad xukumaysay iyo dadkaagii baan ku haynaa soo dhawowsaa ka hadlo aragtideeda ku saabsan safarka madaxweyne Biixi ee gobolka togdheer gaar ahaan magaalada burco waxaan arkaa safar iska amradhalaysa oo waxba soo kordhinayn oo la mid ah safaradii hore oo ku iman jiray dalka gaar ahaan gobolka gaar ahaan kan wuxuu kaga duwan yahay safaradii hore burco maanta waxa u taalla Muuse Biixi xisaabba u taalla xisaabtaasoo u baahan in gobolka togdheer gaar ahaan magaalada burco si midaysan ay ula xisaabtanto muuse haddii aanu nahay magaalada burco gobolka togdheer waxa aanu kugu soo dhaweynaynaa gacmo furan waxaanu kugu soo dhaweynaynaa qalbi furan waxaanu kugu soo dhaweynaynaa kalsooni baanu kugu soo dhaweynaynaa annagu haddaanu nahay gobolka togdheer wax allaala waxaanu dawladda kulmiye ka hayno oo wax qabada ma hayno intaa waxa noo raaca waa xidhan yahay madaarkayagii meeshii burco lagaga dhawaaqay Soomaaliland baanu nahay madaaradayadii waa xidhan yihiin magaaladayadii waa baaba'day madaxweynaha waa soo dhaweynaynaa madaxweynaha waa soo dhaweynaynaa si wacan baanu u soo dhaweynaa haddaan reer burco nahay waa inuu tagaa farantana waa inuu tagaa waa inuu faranta tagaa waa inuu soo arkaa dalka waxa ka jira waa inuu soo ogaado dadka madaxweyne caay ma leh dadkana difaac buu u baahan yahay doorasho uma baahna dalku dagaal buu ku jiraa ninkii aan dalka difaacayna guriga hooyadaa qabo annagu haddaanu reer bari nahay difaac baanu ku jiraa laakiin dalku dagaal buu ku jiraa dagaalka ninkii nala galayowna nala soo gal ninkii kalena maxsalaam annagoo aan reer burco oo aan kala hadhin waxaanaan u kala hadhin madaxweynahayagii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi waanu sugaynaa diyaar baanu u nahay wuu soo socdaa waxaan leenahay madaxweyne soo dhawow
waanu soo dhaweynaynaa gacmo furan iyo qalbi furan ayaanu ku soo dhaweynaynaa madaxweynahayaga waa raggii waddanka xoreeyey ee waddanka u soo dagaalamay markaa wuu mudan yahay waxaan raacinayaa intaa waxqabadka dadku ay sheegayaan ama ay doonayaan waddanku dagaal buu galay rafaad buu galay korona la kulmay madaxweynuhu waa madaxweyne horta marka hore adkaysi badan markaa uu madaxweyne adkaysi badan yahay nin kaleba kama bixin maan malaya intaa haddii aanu ninkaas joogin markaa madaxweynaha waan soo dhaweynayaa wixii qabyaa u taallana waa inuu dhammaystiraa gobolka togdheerna waxqabadkiisa wixii hore uu qabtana uu ku maasay wixii dambe uu soo wadan waan soo dhaweynaa hadduu ilaahay ka dhigo markaa madaxweynaha waxaan leeyahay soo dhawo madaxweyne ku soo dhawo gobolkaagii dadkaagii iyo deegaankaagii ku helan madaxweynaha Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi Xildiid waa ku soo dhaweynaynaa madaxweyne aad iyo aad baan ku soo dhaweynaynaa haddaan nahay gobolka togdheer ee burco wax allaaliye wixii aan tabanaynay ama burca u baahneed ama gobolada bari u baahnaayeen kaama hayno ningayan gafka aqoona dalkiisa wanaag u soo galay nin guusha Antoomi Jaahida gugay handaraab yiraahdeen adeer guulnageeyo weeyaan madaxweynuhu ma garanaysa qadaf iyo ma geeyo maxay ahayd toy iyo baqaasinimo madaxweyne mudane Muuse Biixi Cabdi soo dhawow lagu odaynayaa waxa weeye waddankan adaa iska leh kaalay baan kugu yidhi waa lagu odaynaya deegaan kasta oo berigii hore lagaaga codeeyey na waa lagaaga codaynaya maanta burco way tashatay waxay dooranaysaa cid wax u qabanaysa waa laga baxay wixii kale cid wax qabanaysaa la dooranaya cid wax qabanaysana waanu dooranayna farteedaanu kuu keennay taayadana waanu kugu ridaynaa burcaynu ku soo dhawaynaynaa jigjiidda bari oo dhan baynu ku soo dhawaynaynaa waxaanse idiin u sheegaynaa dee dad baa le madaxweynaha warkaasiyo waxqabad lagaa dooni maayo madaxweyne waa lagula xisaabtamaya ugu horrayn madaxweyne waxaan kuu soo dhawaynaynaa si qiimiyo qaaya leh soo dhawow baanu ku leenahay soo dhawaynta waxaa raaca mudane madaxweyne xisaabna way kuu raacdaa sidii hore maaha berigi hore intaan ku soo dhawaynan cod iyo isugu kaa darnay iyo madaxweynenimadii codkaagii reer togdheer laakiin maanta xisaab baa ka horraysa madaxweyne soo dhawow baanu ku leenahay khayr baanu ku rajaynaynaa doorashada ku soo baxdaanu ku rajaynaynaa cid ku dhaantaa maanta ma jirto madaxweyne soo dhawow baanu leenahay welcome Benhanis ha ku xisaabtamin cod meel iska yaala oo sidii berigii hore aday kaalay oo maanta waan mujaahid baanahay xisaab baan noo taalla waanu imika fakarnay dan togdheernahay wixii aad la timaado baanu kula eegaynaa jaamac Salebaan Cumar Gadhka Bulsha TV magaalada Burco